السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيرتنا شرفت لك وسو dhawaada kanaalkeena af Ingiriis oo ah kanaal aan ugu talagalnay inaan ku soo gudbino ashyaa ku saabsan barashada luqadda afka Ingiriiska ah oo cashirkan maanta uu noqon doono cashirkeena ugu horeeyay ee aan soo dhigno oo heerkiisa uu yahay heerka ugu hooseeya oo bilowga ah waxaana idin bari doona anigu Zakariya Maxamed Axmed cashirkeena waxa ugu talagalnay inay ka faa'iideystaan caruurta yaryar iyo dadka waaweyn oo fursad u heli karin inay kala saddex xaadiraan marka waxaan rajeynayaa si qurux badan uga faa'iideysan doontaan mahadsanid idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu caawisaan subscribe iyo like iyo share-ka si ay noogu noqoto dhiirigelin mahadsanidin cashirkeena maanta wuxuu ka bilaaban doonaa alphabets English alphabets oo ah alfabeetada luqadda afka Ingiriiska ah sida ogtiin baa luqadda waxay leedahay alfabeeto haddii luqadda alfabeeto lahayn waxay ka dhigan tahay luqaddaas luqad wax macno la sameeyo inaysan ahayn marka alfabeetada waxa uu kala qaybinaa laba qaybood oo gadaal aan kaga bari doono like hadda idin dul mari doono oo kala ah consonants iyo vowels ayadoo sharxan gadaal aan kaga soo gudbin doono insha Allah marka consonants waa xarfaha shaqalka ah ama shibanaha ah vowels kan waa xarfaha shaqalka ah marka xarfaha alfabeetada Ingiriiska waxay ka kooban yihiin 26 xarfood oo isugu jirta consonants iyo vowels marka hore aan dul marno sidii ay kala yihiin alfabeetada English waxay ka bilaabataa xarafka A B C D E F G H I J K L M M N O P xarafkan way kala duwan yihiin xarafkan waa B oo muxuu ahaa bishimada hawada ay ka soo baxayso hawo khafiif ay tahay iyo P oo hawo adag ka soo baxayso bishimada P Q R S T U V W X Y Z okay inta aan soo sheegnay waa isku jirka consonants iyo vowels haddii aan kala socono oo consonants oo shibanaha iyo vowels oo shaqalada aan kala socono waxay tahay a waa shaqal A waa shaqal E waa shaqal ayadana I waa shaqal O waa shaqal ayadana iyo U oo inoo shanaysa ayadana waa shaqal marka shaqalada waxay kala yihiin sida tan A E I O iyo U intaas waa shaqalada af Ingiriis oo kooban oo 5 xaraf 5 ah 5 ka kooban iyo wixii ka soo haro loo yaqaan consonants intaan waxaan ka ahayn wixii ka soo haro waa consonants Englishka consonants oo shibana ah consonants wuxuu ka kooban yahay 22 xaraf consonant wax 22 xaraf B waa consonant C waa consonant D waa consonant F waa consonant G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z waa 22 xarfood oo wada consonant ah iyo A E I O U ayagana waa vowels marka waxaan rajeynayaa inaad fahanteen marka waxaan rajeynayaa insha Allah inaad wada kulmi doono cashirkeena labaad oo ka hadli doona consonant iyo vowels ayagoo faahfaahsan insha Allah qarban idin dhaafay mahadsanidin